dadweynaha dhammaan waxaa laga codsanayaa inay awlaadda ayagu dhaleen daawaystaan waayo hooyadu asaaska dhibaatada qoyska hooyada ayaa ka mas-uula odaga waa un iska adjoogtooge hooyo daawaystaan cunugad adigu dhashay waayo waa dantaadee ma samaysan karna hal kaliya waxaa laga codsanayaa hooyada iyo aabbaaba haddii loogu yimaado guriga waa inay siiyaan ilmaha daawada una didin owlaadday ayagu dhaleen waayo waa dantodee soomaaliya oo dowlad dhexe oo caadi u shaqa gashay aanan jirin oonan gaarin gobollaha barkood hooyada waxaa laga codsanayaa inay daawayso ilmaha iyadu dhashay dhaafinna dhibaatada hooyada ayaa ka mas-uula waxaa la ogeysiinayaa cid kasta oo dhashay cunug 5 sano jiro ama ka yar inay daawayso siisana halkan aan hadda joogno waa madrasadii loo yaqaanay madrasatu Ubay ibn Kacab sida hadda idin muuqata oodeedii waa lagu soo durqay waxaa la ii sheegay in loo yaqaano dugsiga Macal Xuseen waxaan isku dayaynaa inaan fiirino qolalkii ka koobnaa madrasatu Ubay ibn Kacab dhankan waa sidiisii oo ciidan dariska waligood bay jirtay tirarkii lagu fadhiisan jiray oo li jiray ayaa wali yaala 12 sano ka hor halkan waxa uu li jiray taaladii madrasada inkastoo hadda aysan ka muuqanin waxa idin muuqda inuu dugsigu dhanka oodan yahay hadeertaan waxaan isku dayaynaa inaan waa qolkii Macallin Maxamed Allah u naxariistee qolkan halkaan kaga muuqda waa qolkii Macallin Cabdullaahi qolkan halkaan kaga muuqda waa qolkii Macallin Cismaan oo gabdhaha guriga jiray qolkaas shishe waan ka bilownay waxaa ku dhigan jiray ardayda quraanka meelo sare gaartay qolkaana ardayda ayaa farta lagu bari jiray qolkan saddexaadna wuxuu ahaa qolkii gabdhaha quraanka lagu bari jiray kuwa weyn oo quraanka meel sare ka gaaray qolkaas ilmo yar oo la isku daray ayaa ku jiray haddaan la ka soo bilowno oo qolka koobaad oo qolkii Macallin Maxamed Allah u naxariistee gudaha markaa soo gashay waxaa ku muuqda in la isku furay qolkii Macallin Maxamed iyo qolkii Macallin Cabdullaahi qolka Macallin Maxamed halkaan ayuu ku ekaa oo qofkii rabo qolkaan inuu gudbo xagga ayuu ka soo wareegan jiray hadda ardaydii weli ma imaanin doorka ay imaanayaan laba macallin ayaa meesha wax ka dhigta معلمينta magacooda waxa noo sheegaya macallinkan macallinka magacooda macallin sani macallin ballan macallinka dugsiga ayaa dugsiga ka meeqa arday ayaa dhigata adu ilaa 150 arday baa dhigato ilaa 150 arday dhigata ma sha Allah meeqa saac ayuu baxaa macallinka wuxuu baxaa adu 2 saac oo subaxnimo 3 saac oo subaxnimo baxaa 9 saacna muu imaada ama 8 saac ku imaada galabtii meeqa saac dhamaysan galabtii adu 12 ka baxaa 12 galabtii ayaa dhamaysan 12 galabtii ka baxaa ardayda dugsiga dhigata meeqa ayaa quraanka dhamaysay قرآن كده بيبقى إلى 8 أرضي ولا ميسي لكن هذا والوسود اللي هذا قرآن أرضي والوسود اللي نختيم الآن واقرته هذا أرضي أنا وقوف ردمها وفري ماشي ما شاء الله أوكي قل كان هذا أنا ركتاه وقلت فرت له برنشري مع عبد الله ومع الكاها الصغر هل كان يجوا كل هاي ألقى عن كلام وغص صبورة حديث يا أيضا قرآن القرآنيين أرضي أنا وأرضي فردمها وأيضا لسوعي أرضي كلاسة قلبها يصون قناهيا halka waxa ka bilaabanayay qolkii Macallin Cismaan oo gabdhaha quraanka ku bari jiray sidoo uu muuqatan qolkaan waa qol aad iyo aad u weyn asaguna arday badan aad u tiro badan ayaa dhigan jirtay hadii aan banaanka u soo baxo xad moodaa dugsigu dhankaan inuu xogaa ka yara dumay uu u baahan yahay xogaa yar oo farsamo waxa kaloo idin muuqda dhan kale ka soo wareegno كانوا يدرسوا كل عليعه وباهي يعطينا صغير وتوسنا waxa kaloo muuqda in ay dugsiga darisu ku soo yaro durqaan oo booskiisii weynaa waagi hore uu haysan jiray uusan haysan taasay muuqata jooga Maxamed asaga ayaa istaariifin doona oo wariyaha magaalada ah
محمد هاي والمعصية عبد الصمد دكسيان سي واي بو aan dhigan jirnay waa dugsiga ugu yibin kacab isagu si weyn looga yaqaano degmada Tambala Xawo waa dugsiga caana saad u tahay aniga adiga anako yar oo saan jeclahay after 10 years ayaan dhigan jirnay dugsiga hadda waa kan way ayuu mariyaa macallimiin badan ayaa soo maray hadda macallimiinta aan kula kulanay markii laga soo tago inta badan aniga waan joogay degmada Tambala Xawo inta soo aan degmooyin kale oo gobolka ama dalka Soomaaliya uga maqnaa marka dugsiga uu fiican yahay wax dhow ma jiraan degmada xaaladda guud ahaan waa ay degan tahay ardaydana si xalsami ay hadda u dhiganayaan dugsigan hadii waagii hore oo bilicdii uu lahaan jiray oo adiga waad xasuusto iyo haddana isku mid maahan ayaa la oran karaa marka cabsimadu waa saas xaaladda dugsiga si loo soo celiyo bilicdii uu lahaan jiray dugsiga iyo magacu lahaa si loo soo celiyo maxaad ka rajaynaysaa dadkii walaalaha ee dugsiga dhigan jiray haddeertaana ku maqan Mareykanka Yurub iyo Australia iyo New Zealand وسؤال ugu muhiimsan oo in la isweydiiyo u baahan taabagelinta dadku waxa ugu fiican qof meeshii uu ka soo bilaabay inuu horumariyo ugu fiican dhammaan saaxiibadeyda ku kala nool dunida daafaheeda sida Cabdisamad oo kale oo maanta nala joogo oo dugsiga isla dhigan jirnay waxaan ugu baaqayaa oo intaan u baahan in lagu dhiirigeliyo in ay meeshii aasaaska ay ka soo bilaabeen oo wax ku soo barteen oo ay maanta darajo ku gaareen oo ay wax ku noqdeen in ay soo xasuustaan laakiin qofka hadii uu inta meeshii wax ka soo bilaabay xasuusan waayo oo inta meel kala tago oo adduunyo kale iska sii galo وأريد اللي ينفع عيان أورانكرا لأن صاحبي وعبد السمد وكلاس ما تعبد سود سود وسيب ودوغانا يو وصو قرتي بل إنه مش وحكسو باللاوي إنه بل إنه سوى إنه بل إنسيت هاي إنه دونتي وهلو باين لما تنيا صاحبي ويل يقبضو وحاسوس تدوسيان وبي بن كعب وايو وحن أقدر دارمها بل إن أي دب قصو جلاعان ودنكي يسلو هاي يرها دوسي أي رينجين سلما كاسنا أي كتلا جان أو أي أتا بجليان سي دوسي وهمين لهايان بلعي دوسي هذا عرفته واحد كم ودوسي هاي باسكي وينا أو لها دوسي هذا أيام قصود رقي تعرف سؤال أنت لسه كهرباء وعندنا يلدي كوين دوسي رينجت كوين هذا ذلك كوسون يكون دبد جربه وأنا عرفت إسكا كهشنو عن دوسي سان بلعي يسكر أو قادم عبسمه وأنا عرفت يعني جالسين لعدمان يعني هذا حاجة جرس إن شاء الله سأل سعتان محمد ووريها مقالة مركان تقنا إذا عدا ينكور سندنا أرنتاس يهو مش أصلا ما محي وحاس وماسكة عبسمه مشان واسي تيفي ويدو لورانك وحاي كهرتي ودنك بربوري وبرحة وسيسي تي في بلاد ويلاد عبسمه ويهان جفتي goobo badan oo hadda midaan aan ahayn oo istiidyo badan oo degmada ku yaala ay leedahay tan waa ay leedahay istiidyo badan oo kala way jiraan caadi ma aha wallahi washadanta meesha waa halkee meesha waa wadadii koobaad oo laga soo galahayay Khalid bin Walid wadooyinka ugu caansanaa ka mid tahay inkastoo hadda ay burbursan tahay inkastoo wadadii weyneed ee dhinacaasha ay ka marto meeshaan waxa weeye waa badanaa wadadii la adeegsan jiray oo magaalada oo iskuulka looga soo aadi jiray madrasada Khalid bin Walid qofkii yaqaan loogama sheekeyn karo waa kana madrasadii meesha tan baan naga dambeysay sayfow adigu kalaskee maraysa markii ay madrasada burburtay waxaan marayay daraaska koobaad saabican marayay meeshaan baa naga dambeysay calankan iyo waxa ku qoran Khalid Primary School koranka ugu dambeysay adiga markii ugu dambeysay anigu waxa igu dambeysay 96 wixii ka dambeeyay calankan lagu buufiyay waa markii dagaaladii ka bilowdeen baa carrada dagaalada siyaasadeed meeshaan way dhisneed laakiin waxay ahaayeen markay baqaar ay ahaayeen waxba ku xareysnaa meesha waxa way harqaamada koobaad harqaamadii lagu